Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan khayrtooda nagala xiriirta halkan oo barta YouTube-kan kulana maalin nagala socotaan. Caawa warkan waxaan kusoo qaadan doonaa in Abiy Ahmed oo dhexaadinayo mucaaradka Somaliland iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taasoo laga baqay in Somaliland muddooyinka soo dhow ay burbur oo ka dhacdo sababtoo ah dhibaatada iyo isqabqabsiga faraha badan ee jiro ayuu micnaha dhexaadin ka sameyn doonaa. Waxaan kala soo qaadan doonaa ciidamada danab oo gobolka Shabeellaha hoose ka fuliyay howlgal culus ayagoo burburiyay xaruntii miinooyinka iyo qaraxyada laga soo abaabuli jiray ee ururka Al-Shabaab ku lahayn deegaanka Shabeellaha hoose. Marka haddaan ku hormarno dhexaadinta Somaliland laga dhex bilaabi doono waxaa leeyahay Muuse Biixi Cabdi iyo mucaaradka muddo far badan ayay haysteen isfaham ayaana ka dhacay halkaasi maadaama ay kala fogaadeen xagga siyaasadda. Muuse Biixi Cabdi wuxuu isku dayay inuu labada group oo meesha ka saaro oo labada xisbi meesha ka saaro laba xisbi oo cusubna meesha oo keeno oo loo kala bixiyay barwaaqo iyo waaberi. Hadda waxaa la leeyahay Abiy Ahmed wuxuu dareemay in dhibaatada halkaasi ka jirto isqabqabsigan uu sii dheeraan karo isdagaalkuna oo dheeraan karo. Marka waxaa la go'aamiyay Abiy Ahmed waxaa leeyahay qadka telefoonka ayuu kala hadlay Muuse Biixi Cabdi. Marka wuxuu leeyahay wada inay dhexaadin diyaar u ahay waa in dhexaadin diyaar u garowdaan. Marka dhibka ugu badan dowladda Muuse Biixi Cabdi ayaa wada leeyahay sababtoo waxay rabaan labada xisbina meesha ka saaraan labada xisbina xaq ayuu leeyahay in tartamaan. Marka dhexaadintaas halkaas laga bilaabi doono waxaan arki doonaa sidee wax uu xaliyo Muuse Biixi Cabdi loo iyo mucaaradka loo xaliyo oo Abiy Ahmed uu xaliyo. Abiy Ahmed wuxuu leeyahay isqabqabsigiina iyo dagaalkiina faraha badan waxba ma keenayo Somaliland inay burburto oo laba group loo kala baxo oo qabiilad iyo hadda kadib dib loo noqdo waxba ma tarayso. Marka burburka ayaa laga hortagayaa mucaaradkana ayagana waxay maalin hore ku dhawaaqeen inay sameyn doonaan dowlad cusub markii waqtiga ay ka dhamaado dowladda hadda jirto Muuse Biixi Cabdi uu hogaamiyo. Marka isqabqabsigaas isjiidkaas ka bacdi waxa waaye xaalad meel xun ayay gaartay nimankan oo laga tirtiri rabo saaxada siyaasadda iyo nimankan oo dhahayo dowlad cusub aan ku dhawaaqayna. Marka meesha inuu dagaal ka dhici karo shaki kuma jiro in la isdagaali doono faraha la isla geli doono shaki kuma jiro. Marka hadda waxaa leeyahay Abiy Ahmed maadaama aysan dowladda aysan ka amar qaadanayn dowladda Soomaaliya iyo meelo kale wadamo kale aysan war ka yeelayn Abiy Ahmed oo aad u xushmeeyaan leeyahay maadaama Abiy Ahmed oo yahay dowlad quwad badan oo Ethiopia inkastoo ayadana dhibaato iyo dagaal haysto laakiin waxaa la Abiy Ahmed wuxuu diyaar u yahay inuu dhexaadiyo Muuse Biixi Cabdi iyo mucaaradka Somaliland hadii Somaliland burbur ka dhaco Ethiopia naftigeedu saameynaa mid sababtoo xuduud ay la leedahay. Marka Abiy Ahmed meel fog ayuu ka fikirayaa waxaana la leeyahay inuu badbaadiyo ayuu rabaa dowladnimada Somaliland hadii maanta la Xasan Maxamed ay dhexaadinayo meesan yeelan laakiin hadda way ka yeelayaan Abiy Ahmed inuu dhexaadiyo. Marka Somaliland nacaybka marka qaar meel xun ay ku gaarsiinaysaa. Marka waxaa la leeyahay hadda Abiy Ahmed qorshahaas go'aan ay ku gaaray wuxuu ka qayb galay laba maalin ka hor cali masaarkii William Ruto oo lagu doortay dalka Kenya. haddana waxaa qadka telefoonka kula xiriiray ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi wuxuuna u ballan qaaday inuu dhexaadin doono wax tilaabo iyo dhaqaaqan ayaan la sameynin banaanbaxyo iyo foodan ayaan la sameynin qolooyinka mucaaradkana qolo kale ayuu u diray ayagana inay la hadleen loo maleynaa. Marka dhibaatadaas iyo dhibkaas in la soo gabagabeeyo Muuse Biixi Cabdina doorasho qabto waqtigii doorashada loogu talagalay ama waqti la isla ogyahay la qabto ayay macnaha ay sheegeen ka wada hadli doonaan. waxaana laga yaabaa in mucaaradka la dhaho Muuse Biixi Cabdi hadda waqtiga maadaama uu ka kooban yahay ugu daro muddo 6 bilood ama 8 bilood ah si doorashada rasmiga loo gaarsiiyo meesha sababtoo hadda hal bil gudaheed wax walba lagu qaban karo miisaaniyada lagu qaban lahaa doorashada horta way taalaa laakiin waxaa meesha ka maqan guddigii iyo macnaha farsamooyinka kale iyo diyaarintii iyo xarumihii iyo meelihii dhanba lama diyaarin. Marka aad iyo aad ay howl ugu baahan tahay hal bilna wax laguma qaban karo. Marka waxaa laga yaabaa in waqti la siiyo dheeri ah oo Somaliland maamulkiisa la siiyo Muuse Biixi Cabdi waqti ku filan oo isku diyaariyo nimankan mucaaradkana la hadlo dhowrnimada jooga doorashada ka qayb galaysiin xisbiyadiina wax tirtiraayo ma lahan sidin ay wada shaqeyn doontaan. Marka tartanka la gaarana tartanka gala hadii la guul dareystana iska tag hadoo Muuse Biixi guul dareystana asaa iska tagay. Marka waxba culeys ma lahan waa si wanaagsan hadii Abiy Ahmed balqaadka uu sameeyo haduu ka dhabeeyo. Marka waa ogaan doonaa Somaliland wixii ka soo kordho akhbaaradkooda bariyahan isqabqabsigooda iyo dhaarta baraha bulshada isku marnaan bariyaha wazaid ay ahaday. Marka waa ogaan doonaa laakiin waxaan rajeynayaa in Somaliland wada fiican ay marto wadada dariiqa oo doorashada lagu qaban jiray in la marsiyo oo aan dagaal iyo foodo kale loo horseedin. Somaliland wax wanaagsan ma dhul Soomaaliyeed oo burburayna dadna ugu ma jirto anaga dambaha saxaafadan ahay Muuse Biixi Cabdi waxaan ku boorinaynaa inuu xaaladda qaboojiyo nimanka mucaaradkana waxaan ku boorinaynaa xaaladda qaboojiyaan si Somaliland doorasho u dhacdo oo meesha kaliya oo hadda maanta lagu gamban karo inkastoo Somaliland aysan dowladeeda aysan ogolaan reer Soomaaliya kale inay meesha tagaan ay ku gambadaan haddana waa maamul dhisan oo nidaamsan oo aan waxba dhibaato maanta aan ka jirin
oo qaraxyo iyo dhibaato aysan ka jirin. Marka waa ugu hambalyeynayna maadaama ay guushaas ay gaareen in dhibaatadaas dhibaato kusoo korortana ma rabno. Guusha ay gaareen in hadafka miraheeda ay gurtaan ayaan jecelnahay. Walaalahayna Soomaaliya waxaan leenahay Somaliland guul iyo gobonimo xaaladan hala qaboojiyo doorasho rasmi ah hala aado. Haddii aan taas ka gudubno ciidamada danab aad iyo aad u tababaran ayaa baryahan waxay wadeen howlgallo ka dhan ururka al-shabaab waxayna xalay waatay burburiyeen dhankaas iyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan waatay dad ay ka burburiyeen oo ururka al-shabaab weerar ku qaadeen oo meel ay ka qabsadeen oo dad fara badan ay ka dileen. Haddana maanta waxay galeen deegaanka la yiraahdo Taxsiile iyo meel u dhow oo tuulooyin ah ayay galeen. Halkaas ayayna waxaa leeyahay Garasaani meel la yiraahdo iyo Taxsiile ayay galeen oo waxay dhulka la jareen ururka al-shabaab waxayna ka qabsadeen meelo fara badan xarumo fara badan oo istiraatiiji u ah oo macnaha Taxsiile iyo deegaanadaas hoos tago ayay waxaa leeyahay weerar ku qaadeen waxayna dhulka ku dareen ururka al-shabaab meelo fara badan oo xarumihii miinooyinka iyo qaraxyada laga soo sameyn jiray laguna dhibaateey jiray dadka shacabka Soomaaliyeed ayay halkaas weerar ku qaadeen. Ciidamada danab waxay sameeyeen howlgal deegaanada guri ayay u galeen kadibna waxay soo qabqabteen qalab qaraxyo iyo barnaamijyo fara badan ay gacanta ku dhigeen weerar ayayna ku qaadeen. Marka ciidamada danab hadda baryahan waxay u soo jeesteen in ururka al-shabaab ka tirtiraan gobolka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyo hiiraan inay meel ka saaraan. Marka taas baryahan waa soo tireysay ma garan karo danab sababta ay hadda si degdeg u howlgalayaan oo shalay kaliya laba weerar ay qaadeen ururka al-shabaab ku qaadeen hadda maanta waa tii saddexaad oo haddana ay ku qaadeen oo laba tuulo oo isku dhow Garsaani meesha la yiraahdo iyo Taxsiile ay ku qaadeen gacantana ay ku dhigeen. Marka aad iyo aad ayay dadaal fara badan u sameeyeen ciidamada danab waxayna sheegeen inay ururka al-shabaab ka tirtiri doonaan Soomaaliya meel walba ay joogaan ugu dabageli doonaan meelaha qaraxyada iyo weerarka laga soo abaabulanay inay gacanta ku dhigi doonaan meel walba oo lagu sheegan inay lugooda ugu tagi doonaan. Ciidamada danab waa ciidamo Mareykanka tababaray ciidamo cabsado oo dagaal iyo waxa ka baqa ma aha waa ciidamo aad u tababaran. Marka tacticooda xataa waxaa lagu leeyahay meelaha qaar diyaarada ayay iska qaadanayaan oo diyaaradda qaataan duqeynayaan marka duqeyn ka bacdi meesha u galayaan. Marka xaalad aad u wanaagsan ay macnaha meesha ay ku dadaalayaan ay marayaan ciidamada danab. Ciidamada danab waxaa leeyahay waa ciidamo aad u taageero Mareykanka dhaqaale u siiyo mushaaraadkooda iyo tababarkooda asaga bixiyo. Marka ururka al-shabaab waxaa leeyahay ma jecel ciidamada danab sababtoo waa ciidamo aan gabanin qalabkoodana u dhameystiran yahay qalabaha ay xiran yihiin iyo waxyaabaha saadka iyo cuntadooda xataa cunto sijil ay wataana lagu leeyahay. Ciidamada danab duur inay joogaan inay magaalo joogaan waa isugu mid. Marka howlgal aad u culus ayay sameeyeen guul ayayna ka gaareen. danabna baryahan waxaa leeyahay looma babac dhigi karo ururka al-shabaab waa tii ku furnaayeen barnaamijyada qabiilaadka waa tii lagu furay ayaama dhaweeto waa tii galmudug oo dhan ay ku kacday hiiraan looga kacay oo haddana xaaladii ee dagaalka uu kusii batay haddana waxaa loo rogay dhan kale ayaa leeyahay oo dagaaladii iyo wixii waxay haddana usii wareegsadeen ciidamada danab ayaa kusoo biiray oo howlgal toos ah micnaha sameeyo. Marka ciidamada danab kama qayb qaataan waxyaabaha kaleeto oo dowladda federaalka Soomaaliya jid xiratay iyo maxaa la dowladda saana iyo madaxweynaha la galbinayo waxa shaqadooda ma aha. Ciidamada danab waxa way howsha loo dhisay ee dadaalka ay wadaan kaliya waxa way inay la dagaalmaan ururka al-shabaab wax qorshe kale ma lahan siyaasad shaqo kuma lahan qabiil shaqo kuma lahan badbaado qaran iyo wixii la sheegi jiray shaqo kuma lahan. haddii maanta la isku leenayo magaalada qabiil ahaan la isku leenayo xataa shaqadooda maaha waa ciidamada danab waa tababar ay qabaan mushaaraadkooda Mareykanka bixiyo guusha ay gaaraan waxa way in ummadda Soomaalida ay gaartay laakiin waxa lagu leeyahay wax shaqo ay ku leeyihiin iyo wax xiriir ay leeyihiin qabiiladka Soomaaliyeed ma lahan laakiin waxa ka go'an in ururka al-shabaab la dagaalamaan meel kasta ay galaan ugu daba galaan hooshooda dhan ee loo sameeyay waxa lagu leeyahay waa la dagaalanka ururka al-shabaab. deegaanka Beledoogle ayaa tababar qaarkood lagu sameeyay qaarkoodna dibadaha lagu soo tababaray waa niman qalabkooda u dhameystiran yahay marka aad iyo aad ay guul u soo gahooyana leeyahay bariyay hadda la soo dhaafay howlgallo oo joogto ah ay sameeyaan. Marka hadda madaxweyne Xasan Maxamuud oo Mareykanka aaday wuxuu kala hadli doonaa xataa dagaalka al-shabaab Mareykanka aad ay uga hadli doonaa waxaan laga yaabaa inay soo afgartaan isha guul ay ku dhamaato ballanqaadna loo sameeyo dowladda federaalka Soomaaliya maadaama dowlad cusub ay tahay in ururka al-shabaab dagaal culus ay ku hayaan. Marka aqyaaray waa ku maasantiin barnaamijkeena la socodkeena intaas aan la socoteen waxaan ka codsanayaa YouTube-kana subscribe iyo like share inaan la wadaagtaan tan kulanteen dambe xiiso waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo.